بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توجه مع 16 ماي إن شاء الله محاضرة الصديحات بنقل دونا تيوجو ري وحين آخري الشيخ سعد موسى وحكو حقي الشيخ محمد ظاهر روبله وحين وحي دونا الشيخ مصطفى إسماعيل هارون وأمر الماين تعريف بانتين استفهام باللغة يغنى وكان إن شاء الله مصطفى كسر دونا محاضرة ومقعد وهي واحد بني آدم يقولوا أبوري أما واحد لنا أبوري وإلهي إنه أبوري سبحانه وتعالى فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. deriska caawa lagu talagalay inaan halkan ka akhriyo wuxuu ku saabsiisan yahay xikmatu khalqi al-insaan, xikmada loo abuuray ama se alla subxaanahu wa tacaala u abuuray bini aadamka. waa masalo runtii haddii aan waxyiga xaggiisa loo kaxaynin dadka madaxu uu ku daalo, in badanna la isku dayay in laga jawaabo se jawaab aan loo helin. waxa aan weli la garan karin oo bini aadamku uu isweydiinaya limaada khuliqna, maxaa laynoo abuuray, xaggaynu ka nimi, xaggaynu ku soconnaa, noloshani xaggay ku gabagaboobaysaa, waa maxay risaalada aynu sidnaaye nolosha aynu u noolay, maxaynu u joognaa halka kan, maxay macnaynaysaa nolosheennu. su-aasha tan dhan kastoo laga eegaba bashariyadu in badan bay isku dayday, ama bini aadamku in badan buu isku dayay hadyi la-aan ama iyadoo aan la adeegsanaynin alle iyo rusushiisu wixii uu u soo dhiibay inay ka jawaabaan, laakiin waa laga jawaabi kari waaye. waxay gaadhay markaa xad qofka bini aadamkii uu qiimo beelo, waayo shaygu wuxuu qiimo ku leeyahay marka waxa lagu isticmaalayo ama waxa uu goynayo marka la garanayo. yani microfonkan horkayga yaalla haddii aan la garanin, aynan garanayn xikmada waxa loogu samaystay inay tahay in lagu hadlo, wuxuu iska noqon lahaa bir yar oo biraha meelahan yaalla ka mid ah, waayo mar haddii xikmadiisa la garan waayo qiimo ma samaynayo. shaygu wuxuu qiimo sameeyaa marka xikmadiisa la garanayo. insaanku se markii xikmadiisii la fahmi kari waayey wuxuu noqday waxaan qiimo samaynaynin. walidalik ayuu axadu shucaraa'ihim, shucaraa'i iljaahiliya ama mabaadi'dan samaawigaa ciddii aan fahmin mid ka midoo gabyayey baa wuxuu leeyahy: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت سأبقي صائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري إلياب الماضي حلي waan imid dunida tan anigoo aan garanayn meel aan ka imi toona. wuxuun baan isarkay buu leeyahay anigoo jooga wadduun baan arkay buu yidhi cagahayga ka hoos baxda, dabeetana waan iska raacay waddaduun baan iska hayaa, waan iska socon buu leeyahay waddadaa gartay meel ay ku socoto ama maan garanba, waan iska wadayaa waddadan socodkeeda. sidii aan meeshan u imi iyo waddadan sidii aan u arkay midna ma garanaya buu yidhi. isweydiinta waxa le buu yidhi maxaan u garan waaye, xataa iyada lafteedaanan garanayn oo ka jawaabi karin buu leeyahy. noloshu hadday hadafka weydo qiimo ma leh. walidalik baa qoladan alfalsafa alwujuudiya existentialists miyaa la yidhaahaa, qoladan rumaysan waxaa la tilmaamaa axadu falaasafatihim oo faransiis ahaa siduu doctor rushdi fakar uu soo naqlinayo,
ayaa wuxuu dilay haweentii uu qabay oo faraxsan dabeetana booliskii u tegay isagoo u sheegaya inuu islaantiisii dilay qisada meel quraan uga socda waa filosof waa la baadhay waa caqli qabaa waxba ma xanuunsanayo waxba ma cabbin ma waalla su-aashii markii la weydiiyeyna falsafadiisii unbuu ku sharxay oo ah nolosha tani waa tacab buu leeyahy waa dhib qofka bini aadamkiina buu yidhi wuxuu ku jiraa dagaal guntiisa la ogyay oo maxaa guntiisu tahay waa geeri buu leeyahy ku yar ku weyn ku hore kuwa haysta kuwaan waxba haysan waa a matter of days waxaad noolaanaysaa uun 50 40 60 markaa jirto waad dhimanaysaa idan waa dagaal ku gabagaboobaya buu leeyahay inaad jabto marka waxa quraan haystaa buu leeyahay waxa weeyaanuun inaan isku dayo bal inaan tan ka baxo anigoo faraxsan ama anigoo nolosha raalli ka ah marka haweenaydaydii waxaan arkay buu leeyahay iyadoo qoslayso faraxsan waxaan sidhi imika ugu fiicantay hadda ha dhimato hadday faraxsan tahay nolosha ka waa ida nolosha waxay u nooshaan macna samaynayn waxay meesha u joogtaan la garanaynin dabeetana itaalka isagu waxa buu rabay ascad awqaatiha waqtiga ugu farxadda badnayd inay ka baxdo maaha waqti sii fog waa discardkan iminka noole markuu faransiiska madaxweynaha ka ahaa weeyaan min akbar cuquuli faransa waayo waxaa dhibtu ka taagantahay waxa weeyaan qofka bini aadamka oo la garan waayey waxa uu qiimo leeyahay muxuu meesha ka qabanaya waxay isweydiiyaan acdaada qofka bini aadamka cudwigiisa organiskiisa organ kasta xikmadda uu jidhka ugu jiro waa la garan karaa bay yidhaahdeen haddii atibada caalamka la isugu yeedhay bay leeleeyahay oo la yidhaahdo ishu maxay macnaynaysaa waa maxay xikmadda isha ka dambaysaa way sharxayaan waxaan bay tartaa saan bay u dhisantay saan bay oo bini aadamka waxaasay u qabataa kelidu maxay u qabataa waa la sharxayaa xikmadda ka dambaysa kelida dhegta waa la sharxayaa xikmadda ka dambaysa marka midhmidh loo sharxo isku daro waa maxay xikmadda haddaba dhammaantii u abuurayay marka la yidhaahdo that's philosophy bay yidhahdaan dhakhaatiirtu dib bay isu taagtaa maxaa laga sharxaya marka haddaad gaadhi maalan taayirka sharaxdo oo kursiga sheegto oo taangiga sheegtid oo carburetorka sheegtid oo dacsadda sheegtid oo wax waloo gaadhiga ka midaba aad sharaxdid marka gaadhiga wuxuu u toro aad ka warrantay marka lagu dhaha gaadhigoo dhan xikmadda ka dambaysa waxaa tiraa waxba ka garan maayo dee gaadhiganaad sharxaysa qiimo ma leh in la iska tuuro weeyaan mar haddaan la garanaynin wax lagu qabto idan insaanka dhibta haysataa waxa weeyaan waxaa la garan la'yahayba wuxuu qabto markaan soo koobana laba ixtimaal baa jira ixtimaal le qasdi baa loo abuuray oo qofkan bini aadamkaa shaqaa loogu talagalay probabilitygu iyo probability kaloo labaadoo odhanaya maya waa cabad iyo dheeldheel iyo waxba maaha probabilityga cabadka ah caqliga iyo sharciguba waa diidan yihin إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم موضوع أنت كهدرنتي هدان قرآن ونخريه أفتن صفحي هريا لوا قرآن تكفي يدا كفلا لكن وحي موقتر هير كندا عربي دايا في سومالي بيكتا كان بالليلي afka gaalada mooyaane kuwa kale ma fahmaan bal waa isku daydayaya markaa inaan bacd alaayaat wax ka tilmaamo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ma waxa u malaynaysaan annamaa khalaqnaakum cabatha ma inaan damba laydinka lahayn qasdi inaanu abuurkiina ka dambaynin ee dheeldheel iyo cabath iyo ujeeddo darra in laydin abuuray miyaa u malaynaysaan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala oo inaydan noo soo noqon doonin إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
إلهي وحليه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عركا يدلكا يوحن أدحية كون كان أدح جوكتان وما أننا أبورين با إلهي سبحانه وتعالى باطل يقصد الدر يعياير لما أبورين ذلك ذن الذين كفروا با إلهي إن أن وحبابا معنين وملها كوا لك قالوا با إلهي سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من النار ورما waxa u malaynaysan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa iimaan iyo amal saalix laga helay iyo mufsidiinta dhulka fasaadinaya inaan isku nooc ka dhigayno aayad kale Ilaahay wuxuu leeyahay wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma laa'ibiin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna faa'iliin bal naqdhifu bil haqqi 'ala al baatil fayadmaghuhu fa idha huwa zaahiq ولكم الويل مما تصفون آيات كلا إلهي وحلي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين آيات كاس القرآن كإلهي وحكوت الماما يا سبحانه وتعالى عركا إيا دولكا إيا وحي دحيال وبن آدم كمديي inaan lacab iyo dheeldheel loo abuurin haddaanu cayaayir doonaynaba ilaahay leeyahay law aradna an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna faa'iliin ba ilaahay subhanahu wa ta'ala agteedaanu ka samaysan lahayn wax lagu dheeldheelo ee dheeldheel looma abuurin idan waxaan leenahay cabas looma abuurin bini aadamka ayahsabu al-insanu an yutraka suda bini aadamku ma wuxuu malaynayaa in sidaa lagaga tegayo maya dheeldheel looma abuurin waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala insaanku hadduu tan isdhaga maro goor dhow inuu xaqiiqada indhaha saari doono wa qaaluu low kunna nasmacu wa nacqil ma kunna fi asxaabi saciir faactarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir yacni ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in la rumaysto dunidan in dheeldheel laysaga joogo oo aan qasdiba ka dambayni inay garaad laawanimo tahay caqli xumo in every aspect oo laga eego waa caqli xumo adduunka kan iskama abuurmin cidla kama imanin ka warna haddaan ku idhaahdo madbacaddii magaalada ee wax daabacaysay madbacadda marka la daabacayo qof baa safa xuruufta حرف حرف ما لو دغا hadaynu idhaahno meesha haza ardiya un baa dhacday earthquake un baa dhacayo dabeetana sanaaduuqdii ay ku jireen xarfuhu ayuunbaa intay kor u soo duuleen ayay bismillaahi araxmaani araxiim qortay rumaysanaysa laga yaabaa inaad tidhaahdo bismillaahi araxmaan raxiim waa dhowr iyo toban xaraf malaayiin xarfi hadday isku daataan inay un dhowr ba iyo siin iyo miim iyo alif iyo laam iyo intaas isu tagto bismillaahi araxmaan araxiim laakiin haddii la yidhaahdo ka waran madbacaddii markay qaraxday waxaa ka soo baxay buug kumbeyj ah oo ku qoran yahay gabay ka warramaya cilmi falaga oo si fiican isugu daba taxan caqligu ma qaadanaya ما أقبلت يعني مسألة وايد دافتي probability theory iyo intu ka suurta galaha iyo waxa soo dhaway ka talawday book dhan oo design u baahan iyo fikrad wixii ku qoraayo waxa soo dhan ba kownkan intan leeg ba cabad iskaga yimi big bang ba dhacayo kown ba samaysmay that's nonsense kownkan intan leeg ayaa cabad ku yimaan cidi ka dambayno qorshayni wax suurta gala maaha saadaradeed bi ilaahay wuxuu leeyahay am tahsabu أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ما حدوا ملاين سبا إلهي سبحانه وتعالى إنتو ذو قبضاني إني وحمق ليان أما سيني عقل ليين وحوله كلبا إلهي سبحانه وتعالى حولنا وكليتان والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم aayaadkaasi waxay tilmaamayaan inaynu soo sheegnay qadiyadda cabadka iyo dheeldheelku inaanay jirin ee qasdi dunida tan in alle uu abuuray subxaanahu wa tacaala
haddaba maxaa loo abuuray maxaa looga jawaabi kari waayey sanco kasta xikmada loo sameeyey saaniceedu ku qarsoonyo yaqaana maalan haddii sideedanaadka bilowgeedii haddii mobilka yar lagu keeno imka waa la wada isticmaalaa mobil iyo telefoon iyo waxan baa iska tira batay qof garan lahaa wuxuu yahay ma jiro allahuma ilaa ka sameeyaa inuu sharxo oo yidhaahdo waxaan waxaasaa loogu talagalay idan shay kasta cidda samaysay ayaa taqaana qasdiga loo sameeyey waxa loogu talagalay shayga kan waxaynu isweydiinaynaa wuxuu yahay insaanka yaa sameeyey se ciddii samaysay ma la weydiin karaya inuu inoo waranto waxa loogu talagalay insaanka waxaa abuuray alle subxaanahu wa tacaala waana qadiyo aan muran badani ku jirin ilaahayna wuxuu leeyahay alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu alkhabiir ilaahay miyaanu ogeyn kuwa abuuray sancadiisii isagu miyaanu garanaynin ilaahay baa wuxuu leeyahay walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid bini aadamka anaa abuuray baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxay naftiisu ugu sheekaynayso oo dhanna waan garanayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala sidaa awgeed sida saxahi waxa weeyaan inaynu ilaahay subxaana wa tacaala la weydiiyo basharkan wixii u abuuray waayo life spanku bini aadamku intuuna leeyahay way tiro badantay laakiin inta aynu arkaynaaba fatro yaroo ka mid ah haddaanad shaygoo dhan wada arki karin xikmadiisa ma garan kartid haddaad qayb ka mida uun lagu tuso waxa quraynu hadda aragnaa waa intan aynu noloshan adduun joogno waxa ka dambeeyoo dhan ma aragno wixii ka horreeyeyna ma aragno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa markaa cidda garan weyda wixii loo abuuray inuu la mid yahay cid madaxa ku socota afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahdaa am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim ma waxaa toosni badan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ma waxaa toosan qofka madaxa ku socda qofka madaxa ku socda waxa weeyaan waa qofka iska indha tiray waxa kaloo dhan maalan haddaad aqoontaynu garanayno dhami waa aqoon aan qiimo badan lahayn marka masaladan loo eego haddii maalan nin intuu doon markab weyn uu sameeyo lagu raaxaysto oo uu meeshii la seexanayay meeshii wax lagu cunayay meeshii lagu orordayay meeshii lagu nasanayay wax walba intuu ku sameeyo dadka uu yidhaahdo soo raaca waxaan diyaariyey waxaa cuni lahaydeen meeshaa u socon lahaydeen oo markaynu idhaahna xagu ku socdaa markabkaaga uu yidhaahdo garan maayo maxaad odhan lahayd waa nin waalan baad odhan lahayde waxaan uu wadee uu leeyahay waan qurxiyey meel u socdaba garan maayo nolosha waxaan laga qurxinayo o dhami waa nolol aan la garanaynba meelay u socoto yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala nolosha adduunyo wax yar bay ka garanayaan baa ilahay yidhi nolosha adduunyo daahirkeeda sare bay garanayaan ama aakhiro waa ka gaafiliin baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala sidaa awgeed ilaahay baa subxaana wa tacaala waxa uu inoo tilmaamayaa waxa basharka loo abuuray maxaa loo abuuray marka ilaa isagaa abuuray inaynu isaga weydiino weeyaan haddii mas'aladaa la garan waayo ilahay wuxuu tilmaamaya waman yushrik biاllahi fakaأnama khara min الsamaaءi fatakhطafuhu الطayru aw tahwi bihi الriixu fi makaanin saxiiq cidda ilaahay u shariik yeeshay cidda garan weyda wixii loo abuuray fakaأnama khara min الsamaaء baa ilahay yidhi waa sidii oo ku laga soo tuuray cirka ka soo dhacay oo fatakhطafuhu الطayr aw tahwi bihi الriixu fi makaanin saxiiq cirka markuu ka soo dhacay oo markaa shimbiruhu ay cirka ku boobayaan samada isagoo soo dhacay oo laalaada ay boobayaan ama dabayluhu ay qaadayaan oo meel daran ay ka tuurayaan yacni waa qof aan hadaf lahayn waa qof aan noloshiisa waxba ka garanaynin meel uu socdo garanaynin
إلهي بينو شيء حكمة الله ينو أبوري مرك سجاين أبوري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سجا أبورك إسكاله أمر كان سجا إسكاله حال ينو أبوري مرك إلهي وحلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين شن إيه ابن آدم تونا وما أبورن با إلهي إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديدا موياني إن يعني جاي عابدان أيانو أبوري با إلهي إلهي سبحانه وتعالى حول لغا مربو إيه إن يعد قوديان تونا إلهي با الرزاقة ذو القوة المتينة لكن وحال لغا ربا إن يلا عابدان سبحانه وتعالى weedho kooban markaa waxaynu leenahay insaanka waxaa loo abuuray sida qur-aanku sheegaya inuu ilaahay caabudo subxaana wa tacaala waxaa loo abuuray in cibaadadaasi lagu itixaamo oo la eego liyabluwakum ayukum axsanu camala sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shaytaan insaanku maadaama cibaado loo abuuray bifitratihi buu caabidiyey waxay yidhahdaan taariikhda bashariyada lama hayo qof bini aadam aan wax caabudin xataa bay yidhaahdaan culumtana aahaarta iyo waxaan la qoday iyo waxa kan weli lama helin bay yidhahdeen magaalo aan macbad lahayn wixii la doonaya lagu caabudo cibaadadu way qaldantaa oo marar badan baa ilaahay keyrkii la caabudaa laakiin meel bilaa macbada lama hayo bay yidhahdaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala miyaanan reer nebi aadamow ballan idinka qaadin ah إن الشيطان كعابد وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم سوجد بإلهي سبحانه وتعالى الرسول نصادره رسول شخصي كوين الصحية إنه شيء هدف كلا ينابور هذه لو قاعدة مثلا ما أنت وعد أنت كو قاعدة الصحارى لما الدقة لوجي يوم ما لا تدققطان تقرنين سعدي ku dhigtay ay ku sheegto sababta aad meeshan lagu keenay iyo waxaad u baahan tahay haddaad diido tiraahdo may waxba soo helmay saxmi maysid haddaad si instruction kiisa raacdo waxay u badan tahay inaad saxanto noloshan waa layna keenay layna galama tashan ragma anfik baad ku timi cidi midabkaad noqon doonto kuma weydiin dhulkaad ku dhalan doonto kuma weydiin qabiilkaad ka tirsanaan doonto kuma weydiinin meeshaad joogi doonto kuma weydiinin aabiyo hooyadaad yeelan doonto kuma weydiinin goortaad dhimanayso cidi ku weydiin mayso xaggaad u baxayso cidi ku weydiin mayso xabaashaad gelayso cidi ku weydiin mayso all this waa lagu keenay allihii ku abuuray ee ku keenay ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan meeshan kuu keenay baan kuu sheegaya rusul baan kuu soo diraya rusushaasi waxa ay kaaga waramaysaa waxa meesha lagu keenay inaad ka qabato laqad arsalna nuuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudu allah ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim ilaahi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala nabi nuux oo rasuulkii ugu horreeyay la soo dira ah say mufassiriintu tilmaamaan waa loo soo diray dadka waxaanu ugu yeedhayay yaa qawmi ibudu allaha maa lakum min ilaahin hayru tolkaya waa la caabuda cid kale ilaah kale ama macbuud kale oo caabudaan ma lihidin ilaahi wuxuu leeyahy walaqad bacathnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu الطaaguut faminhum man hada allah ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ummad kastoo dunida kor joogta rasuul baan u soo diray baa ilaahay leeyahay rasuulku muxuu waday an icbudu allaha wajtanibu الطaaguut ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ka fogaadana kuwa qooqaya xadgudbay ee waxaanay xaq u lahayn raadcaynaya cibaada ilaahay baa xaq u leh subxaana wa tacaala cid kasta oo kaloo hunguraysa waa cid kibirtay oo qooqdo manzilo aanay lahayn isgaadhsiisay إلهي وحليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبي محمد عليه الصلاة والسلام استقوا إلهي الله الله يقول له وحليه
adiga hortaa rasuul maanan soo dirin ilaa iyo rasuul kasta oo bashariyada loo soo diray waxaan u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduuni inaan ilaah xaq lagu caabudaa jirin aniga mooyaane buu alla leeyahy subxaana wa tacaala ee facbuduun icaabuda baa alla leeyahy subxaana wa tacaala waxaa ilaahay tilmaamayaa ambiyadiisa iyo rususha iyo dadka fiicfiican inaanay mas'aladaas iyo malaa'igtiisu marnaba ka santaagayn lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun waman yastankif can cibaadaته wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica ciisa almasiix calayhi salaam kama santaagaya baa ilaahay yidhi inuu ilaahay addoonkiisa noqdo malaa'igta muqarabiintiina kama santaagayso inay alle addoommo u noqdaan ciddii ka santaagta ilaahay cibaadadiisa iyo addoonnimada ee iswaaweynaysa baa ilaahay yidhi ilaahay waa soo xaadirin doonaa waa la soo bacthil bacda almowt baa la keeni oo waa la xisaabin nebi maxamed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin idan waxaan leenahay hadafka ama qasdiga ama xikmadda aynu halkan u joognaa waa in laynagu itixaamo ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala waxaa ceeba markaasi inaynu hadafkii asalkaha ilowno oo wax kale ku mashquulno waxaa ceeba inaad garan weydo kelimatu tawxiid iyo waxay kaaga baahantahy si aad injineer noqoto waxaa ceeba inaad salaada sixi kari weydo si aad tabiib noqoto 17 sanawaat inaad jaamacada joogto adigoo cibaadadaadu ay saxmi kari laaday waxaa ceeba hadafkii aad u noolayd inaad garan weydo oo wax kale ka horaysiiso waxaa aqoon darro ah inay cibaadada ku weydaariso markaasi waxyaabo ah minor cases aan ahayn waxyaabo primary ama aan ahayn wixii rasmiga ahaa ee lagugu talagalay basharku markaa wuxuu u kala qiimo badan yahay dunida jooga siduu ugu kala toosnaan badan yahay masaladaasi cibaadada ah masalada cibaadada ah siduu ugu kala toosnaan badan yahay ee u kala cibaado badan yahay ayuu u kala koreeyaa ina akramakum cinda allahi atqaakum bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanaya ama wakhtiyadii aadka loo ammaanay waxaa ka mid ah oo mansilada sare uu joogay waxaa loogu yeedhayaa ilaahay ku tixgelinayaa lafdiga inuu addoon yahay alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحما هذا سكاله اللي هي الدون كيسا كتابك كسودة شيء وحوينا دي أو وحبركاية الذي نزل الفرقان على عبده فرقان حقيا باطل كدين تكلا صعودك كسودة شيء الدون كيسي سوء نغض الدنيا دور النذير مدقية سبحان الذي أسرى بعبده وححما كوفا اللها ديلميي أما اللها قوريسيي أدون كيسي محمدها الإسراء والمعراج مركو بحيي وليلة التشريف إنا أنزلناه في ليلة القدر مركي الله وشرفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا كحيي إلا كحيي حقه بيت المقدس إلا ديلمية إلا قد ديلمية بيت المقدس إلا قبتسية حقه فوق 7 سماوات إلى سدرة المنتهى واختقا وشرفت بدنايا سيدا اللوما موسى يا إلهي وحقوت الماما سبحان الذي أسرى بعبده صفة اللي في بقى صفة العبودية بل مركو الرسالة دا قدنيي ومقامك الرسول لما تأقنا إلهي وحقوت الماما وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
إلهي سبحانه وتعالى وحو التلمامية أنبيادو مركا استلماميان waxay isku tilmaamaan isku maamuusayaan inuu noqdo inay ilaahay addoomowiyiin qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajacalanii nabiya dhurriyata man xamalnaa maca nuux innahu kaana cabdan shakuura bale addoommaha waa wanaagsan ambiyada saalixiinta dadka wanaagsana ilaahay ammaanaya nebi muuse ninkii saalixa ama nebi khidare uu tegey إلهي وحكولي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهلا يبال لي عبدا من عبادنا أدونا ضمها يغا كمدا وأنو السيني نحرس حقا يغا كتمي وأنو بري علم الدنك يغا كيمي إذن عبادة وأنو لشا أسل كيدي هدف كاسي قفك هدو كلمه ونولشيس وخسارة عبادة داس معنى هيدا قودي وحوية هاي نولشاد ودانين إلهي سبحانه وتعالى إن هقان سناتيد الله سبحانه وتعالى وهقان سناتيد وحكستوات قبانيس عبادات كواوين إنو نقانا عبادات كمحضقا دو توحيدي دو ذكري دو صلاة زكو حج صون iyo wixii lamida bal ee nabigu wuxuu inoo tilmaamay wa fi bud'i ahadikum sadaqa haweentiisa xalaasha qofku hadduu u galmoodo inay labaduba ajir helayaan bal waxa la inoo tilmaamayaa suuqa wadada uska gayaala hadaynu ka duno inay min al-iimaan tahay al-iimaanu bid'a wa 70 aw bid'a wa 60 shu'ba a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq وحلا ينوت المام ينولش شردن إن عبادة نغطو قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلهي وحلي سبحانه وتعالى نبي محمد قل إن الصلاة ونسكي وحتى هذا عبادة ديدة صلاة ديدة قور عيقة عبادات كي قردن ومحياي ومماتي غيري ديدة نولش ديدة وحي قردن إلهي بان ورق جيسان يدنكيس سبحانه وتعالى أو وحبا أو الشريك يالي مايو عبادته هو حرية قفك بنادم كوهلا ومحدك حروبيسا مخلوقاتك إلهي أبو ري ونبتك حروبيسا إلهي يوكلي ياد الدون النقريسا كلي بادو حروبيسا دادك بربا درهم كعابده تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخطيفة نبي حلا عليه الصلاة والسلام وحهوغي كالدرهم يدينار كاللعقت أدونك هو ذهب كأدونك هو سلفر كأدونك هو قضيفة أدونك هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام هذا نلش أدون كوب حسه إن الدرهم يدينار والرسول قد عابديسه أفرأيت من اتخذ إله هواه كورن با إلهي سبحانه وتعالى كان معبود كسي إلهي سكردكتي وحي نفتي صدونتي إلهي بوحلي سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أنا قبا إلهي سبحانه وتعالى حقيقة هدو هنون إذن كي ماضو عدي هنون كي قرع دوا هنون طيبا لكت المامي سبحانه وتعالى وضدي صحيد بهالي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عدي أنا حس كي كتشي ستنبا إلهي سبحانه وتعالى وحلي أن الله عديدية ونحشره يوم القيامة أعمى قيامهنا وحنو كينا يسقوا عندنا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وحيد هذا إلهي سبحانه وتعالى محادي كانت يانقوا عندنا وحان هانشر مدين دقبه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وحلقوا هذا آيات كيقو ويكوي مادين دبيتنا واتسي لو سيسن واتضافتي واتكتكتي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ساسانكو أبال مريبا إلهي إليكو كستا وإسراف حد قدبه وإلهي آيات كيسان رمينين ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن إخوتي في العقيدة، العبادة ووحى إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوابوري نولشان انت وجوغو إنه ممتحن يهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. waxaas kaloo loo sheegay inuu beer xanuun iyo dhib iskaga jirayo. walaqad khalaqna alinsaana fii kabad. laakiin waxaa loo tilmaamay inuu ku daalo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa. kaasaa laga abaalmarinayaa. yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim alladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak. wareer nebi aadamow maxaa idin weydaariyey, maxaa idinka kadiyey baa la yidhi allah idin abuuray subxaana wa tacaala. wuxuu u baahan yahay qofka bini aadamka ahi inuu garto markaa siru wujuudi, muxuu halka u joogaa, dunidan muxuu ka qabanayaa. markaad ogaato inaad geeriyoonayso laa maxaalata inay tahy, kuwii kaa horreeyey madhe, adna waad ka daba madhanaysaa. shalayta adaa inan yar ahaa oo aabbo hooyo adeer in adeer qaraabo abti habar yar cid baad haysatay. maantana adigunbaa dadka waxu ahay, adiga cid wax ku ahi ma joogto. aabba adeer awow madhe, adaa booskii jooga. xaggaad kuyuuga u haysataa, geeraad kuyuugeeda haysataa. waxaynu nahay bulsho dhammaanteed dil ku xukuman oo kuyugii dilka haysata, oo kuwii horena dhinteen adna aad daba socoto. idan waxaad u baahan tahay fitrada ama fursada ama waqtiga yar aad haysato inaad cibaado kaga faa'iidaysato. cibaada inaad kaga faa'iidaysato, garatid waxaad halkan ku qabsato aakhira inuu alla subxaana wa tacaala ka abaalmarinayo. noloshu inay ku gabagaboobayso janno iyo naar inay ku gabagaboobayso. sida awgeed ciddii garan weyda waxay u nooshahay wuxuu ka liitaa kabaha uu xidhan yahay. waayo kabta xikmaddeedaa la garanaya. waxaa la garanayaa kabta maxaa loo sameeyey, inay cagta ilaaliso, qodaxda kaa dhowrto, ciidda xikmad bay leedahay. laakiin qofka garan waayey xikmadda loo abuurayba dee kabtu yuus bay qiimay leedahay, wixii loogu talagalay bay qabanaysaa. laakiin insaanku markuu garan waayo wixii loo abuuray waxaad moodaa inuu qiimo beelayo, inuu lumayo. sida awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo diray rusul iyo ambiyo ina saxda oo dariiqaasi inugu hanuunisa. dariiqaa haleelitaankiisu iyo cibaadadaasi ayaa waxay tahay sirta nolosha dhabta ah. waxay tahay nolosha adduun waxa ay ku islaaxdo. oo cibaadaadku nolosheennan adduun iyagaa islaaxiya, nolosheenna aakhire ee dambana iyagaa islaaxiya. wax kasta oo cibaado ka baxsanina waa nolosha hore iyo ta dambaba wixii fasaadinayay. jahlina waxaa ugu fool xun oo ugu weyn jahliga garan waaya wixii loo nooliyey. jahliga garan waaya wixii loo nooliyey. cibaadaadkaasi ikhwati fi lcaqiida waa shay aan bidcada aqbalin ee itibaaca. waa shay la raaco sidii uu alla u jideeyey loo raaco. ilaahi subxaana wa tacaala isagaa garanaya wuxuu raalli ka yahy, waxa uu jecel yahy, waxa uu necab yahy, waxa aanu rabin. idan cibaado adigu aad samaysato iyadana looma baahna. waxa quree la rabaa cibaadadii alla ku faray inaad samayso. sida awgeed ayaa bidcu
وزيادات على العبادة وإن ديرادو لغو دريا عبادتي وأن كمد هين عبادته وانتي وألا جيدي إساقا قرنيا إلهي سبحانه وتعالى محوك فرحة محوك الرالي محوك عروضة محو نعبيهي محو إنا قربا وحاصر دنا وحو سود بي الرسل سده وإنو كانت عبادات كاسور دميستران داي عقيدتي يهدي شريعتي iyo hadday akhlaaqiyaad iyo hadday wax kastoo nolosha u baahantay tahay sidii laynoogu jideeyay waa inaynu u raacnaa idan cibaadada waxa ka asala kow itibaac baa ka asala raacis bidca iyo waxaa dheeraadka oo dhan laga tago shayga labaad ee ka asalkiina waxa weeyaan in ilaahay keligii loola jeedo ikhlaas ama إلهي سبحانه وتعالى كلجين لجو عابد أيه أيها الشيء اللي بعده كأصله حنشي علينا هذا الكبدنا كلنا نعرفه أو كسر قوة نصوص القرآن كارد كو آخرية إن عبارة نفير ستان قرطاننا وحينو شغنا والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم جزاه الله خير الشيخ مصطفى إسماعيل هارون إلهي سبحانه وتعالى كابل مريم حاضر قيمك ونشيدي إننا سبحانه وتعالى إلهي نقدقو قال كوا نقاته وقال وحو إلهي وأبوري سبحانه وتعالى ما أنت أو جمعة هاي جمعه ولا ماضي ما أنت أن مصر نقدمته إلى يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى وحكبري إنه نقيه له قار عمل كودو صالح نقضه أو إلهي نقابل سبحانه وتعالى كل كان نسوي من يبيت كان مساج كان إلهي نشوفنا عز وجل إنه إلهي نقابله وميزان كان حسنات إلهي ونقدره سبحانه وتعالى بريت ولا أو سبتيا وحنا بلا مدونا برنامج وهدي إلهي لهذا كوبيت مكي بركة صباح نمو بركة إن شاء الله وحني نقول يرجعنا دماتين إن نهرون مادنا سيئن وقف هذه سنة وقتها waayo waqtiga maalmahan aynu joogno waa maalmo tirsan sida uu sheekhu inoo sheegay halka loo socdaana waxa weeyaan waa geeri marka inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmahani aynu la hortagno wanaag iyo magaranaysa inagoo sidaynu hore soo sheegnay dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegaysanayna oo ku qaybsanayna masaajidka Abu Hurayra insha allah ogeysiisadii aan sheegay waxaa ka mid ah waxaan la hadlayaa dhammaan dadkii ku tukan jiray masaajidka Abu Hurayra ee muslimiinta caadiga ahayd idaaradda iyo dhammaan dadka la soo martay dad fara badan baa inoo iman doona oo meelo fog ka kala yimid marka insha allah waxay nagu habboon inaynu si fiican soo dhaweyno dad marka meel isugu yimaadaan arrin la qabanayo kolley sidii la doonayay waxyaaba badan baan u dhacayn marka dulqaadka in la farabadiyo oo waliba gaar ahaan qaybta gabdhaha waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay dulqaad badan u yeeshaan carruurta iyo martida faraha badan leh ee inoo iman doonta aynu kusoo dhaweyno masaajidkeenan Abu Hurayra dadkuna dareemaan inay gurigoodii joogaan saasi ayaan ku dhiirigelinayaa qof walba oo jooga halkan insha allah waxaynu u dareeri doonaa salaadii cishaa'i dabeetana ballankeenu wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo berito ole oo sabtiya iyo 12 barka subaxnimo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته